fikirka Faysal Cali Waraabe maanta sito xilliga muusan hayn baa laga yaabaa waxba laakiin uu maanta xambaarsan yahay dad aaminsanaa ayaa jiray oo lahaa maalintaas waxay lahaayeen maalinta mid baa dishay maya ma dhib baa loo geystay maya waxay taagnaayeen xurriyadda anaga keenay annaga ayaa u dagaalanay annaga ayaa koonfur ka hor qaadanay waa inaanu helaa caasimadda waa inaanu helaa madaxweynaha wardee doorasha meesha ka dhacday doorashadii meesha ka dhacday ninkii ku soo baxay nasiibkiisa cirka haduu ka yimid dhulka haduu ka yimid qabiilku doona ha ahaado ilaahay baa u qadaray aadan cabdullaahi cismaan inuu madaxweyne ugu horeeyo noqdo ilaahay baa u qadaray cabdirashiid cali sharmaarka madaxweyne ku xigay inuu noqdo tiisa ayaa dhamaatay uu dhintay inuu siyaad barxo kula wareegana ilaahay baa u qadaray laakiinse maxay ahayd wixii ugu horeeyay cudurka ugu horeeyay ku dhacay caasimadda maxaa muqdisho looga dhigo hargeysa looga dhigi waay because anaga xorriyadda u soo dagaalay madaxweynaha maxaan u heli la'nahay because anaga xorriyadda u soo dagaalay war xorriyaddan aad ku doodaan habeen iyo maalin xorriyaddan aad ku doodaan goortaad keenteen bal idinku keena ileen goqooyi intaas oo qabiil baa dega qabiil qura oo maanta yiraahda xorriyadda anaa keenay ma jiro dadkii ugu hor dagaalamay ee dhibka ugu weyn ka soo gaaray ee sayidka la safnaa ee ingiriiska ciyay ee adduunka dhan maanta laga yaqaano ee talix diyaaradaha loogu duqeeyay waa dadka maanta maalin walba labada kooneed hoobiyaha kaga garaacdaan iyo hooyooyinkooda aad goblaminaysaan weeyaan kuma doodaan caasimad maxaa loo siin waayay because anaga u soo dhimanay kuma doodaan madaxweyne maxaa loo siin waayay sababtoo anaga ayaa xaq u leh oo dhibkaas soo dhan soo gaaray kuma doodaan maxaa dadkan ka siiya marka traama intaad la baxdeen oo duurka gasheen baad tirahdeen dawladii awoodda lahayd ee Afrika ugu awoodda badneed xilligaas waanu jabinaynaa waanu la dagaalamayna idinkoo yar oo minority oo koox yar oo maskaxda ka jirana ayaa duurka gasheen raama yeelateen maxay sameynaysaa dawlad military marka way idin garaacaysaa marka way maba jirto maxaana loo dilay ma jirto waad ku qaldanaydeen inaad tirahdaan madaxweynaha maxaan u heli weynay sababtoo ah anaga xorriyadda u dagaalay xorriyad uma idin dagaalamin qof shakhsi maanta ku doodi kara Soomaaliya xorriyadeeda anaa keenay ama qabiil ku doodi kara ma jiro hadday noqoto SYL dhalinyaradii ahayd taariikhdu way qoran tahay beena dadka ma karto ma marto beeni taariikhdu way qoran tahay dhalinyaradii SYL before SYL aysan bilaaban waxaa la oran jiray Xamar Youth Club ama naadiga dhalinyarada ee xamar beena ka soo baxday SYL bay markii dambe u diga rogatay Xamar Youth Club baa la oran jiray xamar kuma aysan doodin aniga ayaa xorriyadda keenay wali miyaad ka maqasheen maya lagama maqlin caasimadna noqotana ilaahay baa u qadaray wayna ahaanaysaa laakiinse cudurkan dadka haya muxuu yahay wali ma is weydiisan cudurkeedin haya xaq darradaad ku doodaysaan maxay tahay waxba kama faa'iideysaan waliga xaq darro ku dood waliga been iyo propaganda fidi faa'iido waliga kama gaadhaysi faa'iido waliga kama gaadhaysid adiga baa ku jabaya maxaad ka faa'iiday duurka inaad gasho tirahdo madaxweynaha daanan helayn ama aanan caasimadda laysiinayn raamaan la baxaya duurkan galaya dawladda ugu xoog weyneed baan la dagaalamaya maxaad ka faa'iiday dee way ku duqaysay guryihii baad la gasheen burcaad la gasheen hargeysa la gasheen idinkoo raamistoo qoriyaysitaa oo mooryaano sida al-shabaab oo kale ah dee maxaa la samayn kale markaad tiraahdo waxaan ugaarsanaya ninka dawladda ku jira markaad tiraahdo waxaan dilayaa nin kasta oo aan u garto inuu madaxweynaha ku cid yahay markaad tiraahdo waxaan dilayaa guri kasta oo dawladda leedahay xafiis kasta oo dawladda leedahay maxaa lagu sameeyaa al-shabaab baa tahay marka waa lagu dilayaa meeshaad gashana waa la duqeynayaa dadkii iyo ummadii baad galaafateen ummadii markaad galaafateen dadkii nii jirana ayaa waxaa dhacday ilaa xilliga ilaa maanta inaad ku haysaan beri baana la xansuuqa ismana weydiisaan waay sabab isma weydiisaan waay maba jirtaba وانا لا حنسوقي ها والله إذن حنسوقه والله ولا لهنا وقوي ولا لاي بعض كلنا نسكليه قف سبب سويدينا يا أرانا يا محل إذن حنسوقي ما بجرتب إلا ما أنت تيبت كتاج انتهي إلا ما أنت تيبت كتاج إلا واحد كفى إذا سنة هبير أتي ما جرت رنت واحدين شيئا واد ويدين إذن كان السوما شيكتان صومالي كلنا إذن ما شيكت حرية دانو كاني مدحوينا ما إنه هلا ما صعنا يسوي وحلة يرهد أنا جا أيها تلنا يا هدانا تلي وانجو أيها وحلة يرهد ما جرتو ummadu ma wada isi saarna ma wada haysto isaaq qodan anu dadka xanuunsanaya Faysal Cali Waraabe iyo Muuse Bixi ku fikirka aban haysta ee xanuunsanaya laakiin ummad dhan oo sheekh iyo shariif bale sheekh Mustafa ka dhashay oo adduunka sheekh aan ka jecelahay uusan jirin ma aha marka qabiil waxa aan haysto laakiin dadka xanuunsanaya ee uu ku jiro Faysal Cali Waraabe iyo kooxaha ku afka ah ee afkiisa ku hadlayeen sheegaya oo maalintaana nooca u fakaraya maantana sida u fakaraya oo ilaa maanta ilaa maalinta cudurkaas uu ku tulaalayay wax ka daaweeyana aysan jirin runta hadii aan la isku sheegin daawadeeda waligeed lama helayo marka
waxaan leeyahay dadka nooca u fikiraya ee ilaa maanta ku taamaya xeradii uu ingiriisku noo soo xiray sidii xoolihii uu nagu xereeyay berigaan xayawaanka ahayn oo xoolo dhaqatada ahayn ayaanu ilaa hadda ku taamina warday dalka ingiriis male anaa iskale dalka ingiriis male soomaaliba iskale soomaaligana ilaahay baa qabiil walba meel ku beeray iyo magaalo iyo tuulo meeshii ilaahay ku beeray buuna nabad ugu noolaanaya hadduu nabad ugu noolaan karaynin aad ku xadgudubtana wuu iska kaa celinaya ummadda kale oo dhan baana arkaysa xadgudubka cid kasta ayaa arkaysa waxaan leeyahay marka dadka noocaa u fikiraya maanta waxaan leeyahay haddaydan waxaa joojinaynin ogaada ma aha qabiil waxaa samaynaya waa dad yar oo xanuunsanaya oo bukaan ah markab baa la idinka soo kirayn doonaa jayne ama maxaan ku yidhahdaa markab weyn oo dadka qaadaa waxaa la idinka kooni doonaa raashiya iyo dowladda soomaaliya maanta xiriir weyn baa ka dhexeeya wanaagsan markab baa la idinka soo kirayn doonaa ingiriiska aad habeen iyo maalin ku digridaan ee ku wacdidaan ayaa gurigiisa laydinku geynaya xeraha idinku xereeyo dhulkan soomaaliba iskale dhulku ma guura dadkaa guura dhulku ma guurayo waana dhul soomaaliyeed intii bugto jiran markab baa loo soo kiraynayaa ha lagu qaado hal markab baa idinku filan ingiriis baa laydin geynaya habeen iyo maalin weedinka sida tusbaxasaa ugu digreeya ee ku hayaa ingiriis xeradii noo waday ingiriis xeradii nagu xereeyay ingiriis waaguna xereyn jiray ingiriis bal ceebtooda dad aan ka xishoonaynin waaba xero laygu xereeyay sida xoolihiibaa xeran lagu hooyaabay tiri doqon baa habowsanoo weligeed halowsan inaad doqon habowsanoo weligeed halowsan tahay waxaa tiri ingiriis baa xero igu xereeyay waa xeradii baana ku taamayaa ilaa qiyaamaha war ingiriis dalka ma leh xaaraan buu ku haystay xaqdarruu ku haystay waana iska kicinay awooddayadan iskaga kicinay wuu naga tegay dhulkaana iskale anaa degan qolo walbana ilaahay meeshii uu ku beeray bay ku nooshahay mana aha wax la kala sooci karayo marka haddaad u bugto xero in lagugu xereeyo ingiriis baa xero lagaaga oodayaa marka baana jayno lagaaga soo kiraynayaa in allaale iyo inta faysal carwaraabe iyo muuse bixi iyo inta ku fikirkaaba ha lagu guro markabkaasoo dalka ha laga saaro dalku ma guuro sidiisa banaanba laakiinse dadkaa guura waadna guuraysaan maalin aan fogeyn waxaan u soo noqonayaa marka waxa la yidhi dadka marka meesha ku balanbalaya ee la leeyahay maalinna way sixran yihiin maalinna miyaysan aqoon-yahan lahayn maalinna waa dooni qaatayaal maalinna waa fadlan lacag ku shubo maalinna waa sidan maalinna waa sidan ee maalinna ay puntland ku qaraab doonato maalinna somalilan ku qaraab doonato guryahoodana aanan wax alla wax la gaarsiiya aysan jirin dadkaas dhibka haysta aad marna sixirka u saarinaysaan marna waa sidan leedihiin marna maxaan ku radaaye xagganay ka leeyihiin ma jeerteen walaalkayo weeye walaalkayo waanu u hiilinahaynaa hadde walaalkayo hadda xaggii xaggaba asaga ayaa ku dhimanahaya dhulbahanta waa waalan yahay waa dhohan yahay dhulbahanta xaggii xaggaba asaga ayaa ku dhimanahaya uu xaggana waqooyiga iyo somalilan ay kasoo leeyihiin hadda lafagel iyagaa laisku jebiyaa ardaniyo lafagel iyagaa laisku jebiyaaye ha isku go-aan reerku dad yowgii kale iyo ummadii soomaaliyeed ee soomaali maxamedna waxay leedahay reerkuma biyo falbay cabeen aqoon-yahan male miyaa maxaa ka siiya hadalka horaan soo sheegay dib ma raba inaan ugu noqdo cudurka haya ma aha aqoon-yahan darro ma hayso oo kumanaan aqoon-yahan baa ku jira oo maxaan ku yidhaahdaa ma hayso tiro ma hayso tiro yari ma hayso oo tayala-aani ma hayso oo sixir wax la yidhaahdaa ma shaqeeyo sixir ma jiro cidina ma sixrin sixir anigu ma aaminsani wax la yidhaahdo waxaa dhibka haystaa wuxuu yahay horaa waxaa loo yiri qof kasta wuxuu geystaa laga goynaya taariikhdan rabaa waxyar inaan dib ugu laabto taariikhda aan dib ugu laabanaya waxay tahay dowladdii siyaad barre ama ka hor ingiriiskii wixii ka horreeyey soomaalidu maaha dad taariikhda qora soomaalidu buugaag ay wax ku qorta ma laha intii hadda af soomaaliga la qorayna wixii yaraaya la qoray dee waagii la kala qaxayaa lala kala qaxa laakiinse waxa aan duugoobin inta badan waa gabayada markaad si fiican u fiiriso magacyada iyo markaad aragto waxaad oranaysaa ninkan saas u ahaan jiray laakiinse taariikh dhammaystiran oo fuulihi ma jirto inta badan dhulbahanta dhibku hore u geystaa maanta laga goynaya xaqiiqada markaan idiin sheego ingiriiskii ka hor waxaa jiray niman aada u qooqay oo kibray oo dhulbahanta ahaa waxaa ku jiray nin la yidhahdo afxakame ninkaasi wuxuu ku jiraa gabayga ismaaciil mire yacni taariikhda markaad adigu waxaa laga yaabaa inaad mararka qaarkood beensato laakiinse haddaad gabayada ismaaciil mire duhu baadho waad ka helaysaa gabayga la dhaho ragow kibirka waa lagu kufaa kaa hala ogaado wuxuu leeyahay magaca ninkaas wuu ku jiraa wuxuu leeyahay afxakame kulaylkii la dhimay iyo karkabadii ka dambe caluu yiri intuu kaaha guursaday isna kaashu tumay oo wadnaha ku kala siiyay ragow kibirka waa lagu kufaa kaa hala ogaado gabaygaasi
waa gabay dheer waxyaabo badan buu ka hadlay wuxuu ka sheekeynayaa marka dhammaan intii niman kibir iyo qooq darteed loo dilay oo u dhimato ka sheekeynaya marka gabayga waxa sababta lagu tiriyay waxay ahayd xilliga ingiriiska uu dalka haystaa la tiriyay nin carab dheere loo oran jiray oo ingiriiska u ahaa hormuud ama horgale u ahaa ayaa wuxuu laayay niman isku hayb ahaa oo hal meel wada joogay way ku alabariyeen mise ku shirayeen ma garanayo nimankiiba intuu ka dhago qorta ka wada guray buu yiri dhacdadan Ismaaciil Marow maadaamad gabyaa tahay waxaan rabaa inaad ka gabaydo markaasuu wuxuu yiri warmaad iga days suu yiri maya waynaad ka gabaydaa haddana ninku waa ninka Brayo Ingiriiska garwadeenu ahe hadduu gabaygaas noqdo gabay qaloocan ama isaga wax ka sheegaya wuu xidhaya ama wuu dilaya dan wuxuu ku yiri gabayga waan tirinayaa laakiin se ballan iga qaad inaadan ama xidhi doonin ama dili doonin waa ballan buu yiri gabaygan uu tiriyay marka ka rago kibirka waa lagu kufaa ka haloogaado dhammaan markuu nimankii dhibaatada soo geysan jiray oo dhan tiriyay marka oo mid walba uu ku soo gabagabeynayay rago kibirka waa lagu kufaa ka haloogaado buu yiri ninku waa ka daran baan arkaan kadaba noolayne mid intuu kashbacay kama weyn yeeshay ayuu duul karaamiyo colbale kiishka buuxsaday waa dadka uu marka leenayo kibirka oo ku laayay ninkii waxba kama dambeyn gabayga markii loo tiriyay wuu dhintay inta badan waxa la gabayada marka la isku guhaado way dhintaan qofka loo gabiyaa marka gabayga waxaan uga soo qaatay waxay tahay wuxuu yiri afxa kama kuleelkii la dhimay iyo karkabadii ka dambe calu yiri intuu ka guursaday ninkaasi qooq iyo kibir intuu ka gaaray wuxuu sameeyay nin buu yiri baan guursanayaa iska daa heer yani kibir adduunyada waxaan waaga ka dhici jirin maanta reer qoomuluudi waxyaabahan hadda dhacaya iyo lama jirin dama la aqoonin wuxuu yiri nin baan rabaa inaan arooso oo dumarkii waan ka gudbay heer baxan gaaray hadda inaan rag arooso ayaan maraya yani guur caadi kama ahayn laakiin yasid bay ka ahayd iyo kibir uu heerka ka gaaray kibirka iyo qooqa uu gaaray wuxuu gaarsiiyay intuu rag laayo inuu ka dalooliyo seedaha oo uu dhirta ka soo laalaadiyo kibirka markaa ku jiray ninkaasi waxay lahaayeen marka dhulbahantu farda aad u fara badan oo waa sababta markii dambe ingiriisku u weerarayay uu yimid ninkii sayid cabdilla xasan markuu imanayay waa ka hor marka intaanu sayidku imanin ilaan sayidka haabayareeyay oo maxaan ku radaa waagaas dhibkay hore usoo geysteenba sayidkaa ka gooyay oo waa tii la xansuuqay oo xoolaha laga sumeeyey oo dhib walba loo geystay laakiinse waagaas waa intaanu imanin xitaa sayidku fardaha marka ilaahay ugu deeqay waxay noqotay inay dadka ku laayaan inay dadka ugu faanaan inay buuraha ka saaraan dadka deriska la ah ee buuraha caldiga ayaa waxay sameeyeen intay la dagaalamaan waa ceelaf weyn iyo inta ka shisheysay ogow intay la dagaalamaan inay ku yiraahdaan buurta haddaad kasoo degtaan dhulka haddaad cagaha soo dhigtaan yacni waxaba tiin dambiilayaan waxaa dhacday maalin nin buurta saarnaa marka oy kibir dartiisa buurta u saareen intuu soo degay oo uu dhulka yimi oo sagaaro ku dishay inuu yiri sagaarada magteedii bixi sagaarada aad dhulka ku dilootay magteeda bixi waayo dhulka adigu xaq uma lihid inay xoolahaagu daaqaan xaq uma lihid inaad sagaaradeeda ugaarsataan xaq uma lihid mag buu yiri rageed ayay sagaaradana u dhigan tahay bixi waa ninka kibir heerkaasi ka gaaray markii ugu dambeysay gabadh aanan hadda ma sheegi karo cid ay ahayd laakiin gabadh buu waxa soo guursaday nin kale oo ina adeerkiisa gabadha kaaha la oran jiray gabaygeena ku jirtaa kaaha marka gabadh qurux badan bay ahayd markii ninku soo guursaday waxay ku noqotay reerkeeda dhaqankii hore Soomaalida gabadhu markay reerka dib ugu noqoto waxa la soo siiyay wax la yiraahdo dhibaat ama xoolaha loo soo dhiibaa xoolihii iyadoo wadato ay awrtii u raran tahay ayuu jidka ku arkay markaas wuxuu yiri gabadhan iyo xoolaheedaba halay soo wareejiyo waa qurux badan tahay haddayna adeerkiisnina baa qabo isnoo kala dhulbaanta oo isna nin qooqay oo kibre ah oo cali la yiraahdo marka waa markuu leeyahay ka dambe cali yiri intuu ka guursaday yani intuu ka guursaday wuxuu yiri cali waad ka dambeyn doontaa laakiin sida kibirka ilaahay ma jecla gabadhii wuuba arooso meel buu digsaday hadda waa gabadh nin qabo diini ma jirto wuxuu sameeyay calina wuu soo duulay wadnuhu ku kala siiyay marka labadii nin laba waxay isdhaafsadeen waran kana mid buu ku dhuftay kanina mid buu ku dhuftay labadii waran ay ku dhufteen labadoodiba u dhinteen labanuna aad iyo u kibir badanna way ahaayeen kibirkana ilaahay ma jecla marka dhibaatadii ay hore u soo geysteen dhulbahanta ayaa maanta laga goynaya waana waqti dheer waa intii ka horeysay daraawish iyo intii ka horeysay ingiriis ma joogin ingiriisna ma joogin daraawishna ma joogin markay waxa sameeyeen maanta marka inaad silicdaane waa waxay hore dadkiina u geysteen
waxaad hore idinku u geysateen baa maanta la idinka goynayaa ee maaha inaad tiraahdo waa lay sixray waa lay biyafal baa lay cabsiiyey sidaa darteed ban xagga anigu sulaynayaa anigii laysugu kayjibinayaa maaha inaad tirahdaan sidaas xaqiiqada jirtaa waxay tahay wixii aad hore u geysateen taa ka kaale dowladdii ina siyaad baray garwadeenba dhulbahantuu ka ahaayeen 5 golaha sareyna ku jiray markii lala dagaalamayay SNM waqooyi lagula dagaalamayay safka ugu horeeya dhulbahanta kaga jiray tuulo walba iyo magaalo walba oo dagaal lagu qaado safka ugu horeeya dhulbahanta ku jiray maxaad maanta u calaacalaysaan marka wixii aad gasheen baa laydinka goynayaa qof walba wuxuu geysto waa madax u yaala ama awowayaashii ha geysteen ama isagu hadda ha geysto nafsigu waagii hore uu soo daahi jiray waqti badan baad calan waleynayseen laakiin maanta waxaa sida dabaylaha sida awal diinka sida jiray baa leeyahay laakiin maanta nafsiga dabaylaha sida hadda waxaan leeyahay marka ma jeerteen iyo isaaqow nafsigay hore dhulbahanta u galeen maanta ha gelina waayo nafsigu maanta ma soo daahayo dabaylaha sida diin ma sido dhulbahantaha waxa haya maanta nafsigii diinka siday waayo waqti aad u dheer bay soo kibrayeen oo ay dadka ku qooqayeen oo ay xoolahooda dhacayeen oo ay dhulka u diidanaayeen oo ay say rabaan ka yeelayeen maanta laakiin hadday ku habsatay oo nafsigii diindiinku waday uu u yimi idinka waxaan idin leeyahay isaaq iyo majeerteenow nafsiga dabayluhu sidaanay degdegaya yaanu bari idinku dhicin ee dhibaatada aad wadaan joojiya waxba maanta ha u arkinina kastamka yar ee tukaraq ku yaala ee baabuurta ka timaado koonfur iyo waqooyi ka timaada u kala gooshaan isku dhaafaan ee laga qaato quutalyoomka yar laga urursado waxba ha u arkinina taasi kursida aad maanta ku fadhidaan ee aad ku raadsanaysaan khaasatan cabdiweli gaasow iyo dadka tolkiisa ah ee ku xareeraysan ee sacabka u tumayo ee hartisamka ku wardiyaya iyo daaroodisamkow wax daaroodisam iyo wax hartisam la yiraahdaa ma jiro odayaashaasi waa hore dhinteen dambi waxay galeen iyo shar waxay galeen iyo khayr waxay galeen aqoon ma lihin inay jireen iyo inay joogaan aqoon ma lihin naftaada ayaa lagu weydiinaya laguma weydiinayo daarood iyo saaqtoona laguma weydiinayo harti iyo saaqtoona laakiin waxa lagu weydiinayaa maanta naftaada waxa aad u qabsanayso aakhiradaada waxa aad u qabsanayso dadka aad ka tagayso carruurta aad dhalayso iyo dhulkaaga waxa aad u qabsanayso intaas ayaa mas'uuliyad ka saaran tahay waayo odayaasha ma taqaanidba waa lagu sheegay buug miyay ku qoran yihiin video miyaad ka haysaa sawir miyaad ka haysaa cadayn miyaad ka haysaa ma jiraan horta maya wax daarood la yiraahdo ma jiro wax isaaq la yiraahdo ma jiro wax hawiye la yiraahdo ma jiro qarniyaa ka soo wareegay buwaagna kuma qorna xagee ku jiraan marka magacan idinka in la isku kiinjibiyo Soomaali la isku nacbaysiiyo la isku kiindiro ayaa adduunka loo keenay anigu waxa banaamijsanay Ingiriiski baa keenay iyo Talyaanigi oo magacyada noo kala bixiyay laakiin odayaashan aad ku digradaan habeen iyo maalin inay jiraan iyo inay jirin wallahi cid taqaana inaysan jirin maxaa idinka galay haddii xitaa jiraan dhinte lafay noqdeen aakhira lagu xisaabtamaya kii cadaab loo dirayeen waa hore loo diray kii janno loo dirayeen waa hore loo diray maxaa adiga ka galay maanta adiga ku huran maanta maxaad qabsan kartaa ayaa ku huran hadalkiyo kooban waan xiiqay maanta waan haraadsanahay rabadana waa lagu jiray waxa rabaa inaan ku soo gabagabeeyo dadka meesha ku noolow maxaan ku radaa marna qoladani u soo tafaxaydanayso leeyihiin hadda walaalka ciilka la badan rabaa inaan ka fujiyo waxaan leeyahay war walaal wax la yiraahdaa ma jiro Soomaali waa Soomaali isaaq iyo dhulbahantana waa walaalo maxaan ku rahdayay majartan iyo dhulbahantana waa walaalo dadkuna waa dad wada walaala magacyadan aad wadataan taas iska dhaaftaan Soomaalinimadu wax walba inteedii kala weynaato dadka meesha ku noolow ee ceebta adduunka uga baxayo ee marna la leeyahay aqoonyahan malamiya marna la leeyahay biyo falbey cabeeno haddaad Hargeysa joogto iyo haddaad Garowe joogto ceebta aad dhex fadhido maanta ka soo bax haddaad maanta ka soo baxdo qaybta dhex fadhido nimankan hubka sita haddaad hub sidato aad Soomaaliland tahayna iskaga soo bax haddaad hub sidato aad Puntland tahayna iskaga soo bax war ma inta kaliya idinku filaan weydo war ma inta kaliya idan sameyn kareynin war ma wax ka fudud oo la sameeyaa jira haddaad hub sidato oo aad rabto inaad hooyada disho oo aad rabto inaad cunugaaga yar disho oo aad rabto in ayayada gurigeeda xabad ka dul rido oo aad rabtay xoolaha baadiyaha jooga inaad barakiciso tuulooyinka inaad gubto haddaad rabtay oo aad Soomaaliland hubkeeda sidatay war adeero adigoo hubkaaga wata ka soo bax kan Hargeysa kan jooga Garowe adigana kadalik sida samee ma inta saa idinku filaan weyday war adduunka waad ka ceebaysantihiin inta qor idinku filaan weyday adigana hubkaaga soo kaxayso dhul baa Ilaahay idinka beeray dhulkiina imaada oo ka soo bax war wasiirnimo aakhira iyo adduun midna wax kama tarto aakhirana wax kuma tarayso adduun wax kuma tarayso war hooyooyinkiina aad goblaminaysaan ka fikira oo ka naxa wadaadada la ascaanad joogo
wadaadada dhulbahantow ciidina idinkama cilmi badda laascaanadu waa meesha ugu diinta badan leh gobolada Soomaaliya oo dhan haddaad isu soo marto waa magaalada ugu diinta badan leh wadaadadeedii meeya maxaa u diiday inaad isu soo baxdaan maxaa u diiday inaad dadkaas idinka oo kitaabka midigta ku sita meesha xabadu ka dhacayso inaad tagtaan maxaa idin diiday maxaa idin diiday inaad dadka kala dirtaan maxaa idin diiday hooyo iyo caruur iyo arday iyo cid kasta idinka oo wato oo guuraya meesha hoobiyu ka dhacay haba idinku dhacay inaad tagtaan maxaa idin diiday maxaa idin diiday inaad tirahdaan abhisaan kitaabka midigta idinka ku sitaa war anagu ma jarteena ma naqaano isaaqna ma naqaan dhulkan ilaahay anagu nagu beero u tashanayna ordaya naga taga haddaan rabno dawlad maba rabno wax khaatumo la dhahana ma rabno SSC wax la yiraahdo ma rabno Puntland wax la yiraahdo ma rabno mara calala ma rabno ilaahay baa Soomaali naga dhigay caalankaasana ilaahayna siiyay inta wixii ka badan ma doonayno dhulkayaga anaga falanayna anaga xoolahayaga la soo baxayna faraha naga qaad war ma inta kaliyaad kari weydeen culimiya caamaynta isku tagtaan misida falka la sheegay run waxaan wax ka badan ma falka la sheegay run waa yahay war intaasi kaliya ma sameyn kari weydeen inta ka garowga jooga iyo ka hargeysa jooga intaad iskugu timaadaan geed dhexdaasa ma cid yaad ka baqaysaan ma waxaad ka baqaysaan inta dhubahan ma jartanadu kusoo duluna kawdan ka dhigo mise intuu isaqan kusoo duluna kawdan ka dhigo maya haddii ilaahay qadara wadin ka dhigi karaa cidna ma baajin karto wadka fulinimada inta ka badani wax yani waa la isku cadaabataa inta haday ka badan tahay dhulka ilaahay adigu kugu beeray adiga ayaa iskale ilaahay ka suko dhulkan ilaahay baa iskala abuurtay laakiinse adoo ilaahay kugu beero ka soo saaray maxaad sugaysaa marka maxaad u sugaysaa hargeysa mukeefka u dhex fadhida ama iyo garowwe ayadoo hooyada ay barakacayso ayadoo hooyada hoobiya u dusheeda ka dhacay ceeb inta ka weyn oo maxaan ku raahdaa idin dhiman ma jirto ceeb inta ka weyn oo idin dhiman ma jirto culimada dhammaan Soomaaliyeed marka culimada dhammaan Soomaaliyeed waxaan leeyahay dhiig markuu daato waliga culimada ka hadli jirtay laakiin sama garanay sababta hadda waa amsantii waa bil Ramadaan baa lagu jira xilli dhiig la daadiyo ma aha maxaad u tihiin culimo ilaahay aakhiro inuusan idin weydiinin maad u malaysaan maxaa iga galay ma aha culimo haddaa tahay adiga waxaa tahay hormuudka ummadda meesha ku nool waxaa la rabaa marka inaad u hadasho waxaa la rabaa inaad ka hadasho waxaa la rabaa inaad xaq bayaaniso waxaa la rabaa inaad kala dhex gashaan culimada iyadoo kutubtooda sita hadday kala dhex galaan xabadda kirida gacanta qalalaysa war idinku haddaydan iskaraaminin cidina idinma karaameynayso dadku haddaan iskaraamin cidina ma karaameynayso dowladda Soomaaliyana waxaan leeyahay Soomaaliya idinka ayaa u dhaartay min raas casayr ilaa iyo raas gambooni haddaad shalay toole kala dhex dhigteen nabad gaalkacayo inaad maantana kala dhex dhigtaan tukaraq nabad waa waajib korka idinka saaran muxuu yiri madaxweynuhu shalay waan hadalay oo baaq baan u dirnay baaq iyo hadal wax la yiraahdaa ma jiro dadkani baaq ma qaadanayaan hadal ma qaadanayaan maskaxda biyo kaga jiraan ishan guuto oo ciidana oo aad meesha dhex dhigtaan baa ku filan oo aan cidaana la safnayn meesha kaliya amaankeeda qabsada labada dhinacan xagga u kala riixa intaas oo kaliya taa ku filan lama sameyn culimo ma hadlin dadkii meesha joogay ma kicin cid kale oo ma kicin halkana waxa la istaagay daarad xaq buu diriraya isaaq xaq darro ku diriraya anaga hartibaana la yiraahdaa anaga kan baan la maxay soo kordhinaysaa taas war qarniyaad ku soo dagaalamaysan anaga reer hebel baan la yiraahdaa wax reer hebel dhahan ma jirta waa sumadii ingiriisku idin la baxay talyaani iyo ingiriis baan ku yiri daarad baa la yiraahdaa kan hawiya la yiraahdaa kan isaaq baa la yiraahdaa kan reer hebel ka adkaan jiray kan sidan buu ahaan jiray idinka waxaad qortaan waxa ma qortaane dadaan buugaag haysanin oo cadayn haysanin oo waxba meel oo online oo wax inta lagu akhriyo iska qaadanayo weey war daarad wax la yiraahdaa ma jiro isaaq wax la yiraahdaa ma jiro awiya wax la yiraahdaa ma jiro qabiil dhani ma jiro maanta aad nooshahay maanta ka faa'iideyso intaas oo qarni ka hor wax lagu sheegay oo inay runtahay inay beentay aadan ogeyn inaad ku digrido ku adinto oo aad qor u qaadataa ceeb adduunka aweeyaan isku xishooda bil Ramadaan baa lagu jiraa ee isku xishooda ilaahayna ka baqa ilaahay ha laga baqo waxa leeyahay Muuse bixiyo iyo labada nin dantooda wata ee midna moodayo inuu faa'iido ku helayo waagi xiradiina lagu xireeyay man soo xiranayna adar xiraha dad rabto ingiriiska xiraw doonade marka baa lagu saarayaa ingiriisku xiraha kugu xireeyay dad xiradiis u xiistay dhulkan Soomaaliba iskale xariiq ingiriis jeexana kama shaqeeyo Cabdiweli Gaasna way dhacaysaa doorasho lagumana doonayo shacabkana indhahooda iskama jeedin kartid oo dagaal aan jirin oo been ah ma aha inaad iskaga jeediso dadka kaama jeensanayaan waxa tahayna waa la yaqaanaa waadna fashilan tahay
dadka maanta halkaasi aad ku xansuuqaysad ku dilayso iyo dadka masaakiinta gaari gacanada kuwii wadan jiraad kusoo qurqurtay iska rawooyinka ee meesha ku dhimanaya sabab ay u dhimanayaan iyo sabab walaalkood u dilayaan aanan garanaynin qiyaamaha ilaahay baa adiga kugu cadaabi doona laakiin waa bil rabadaan rabbi subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa in uu cadaabkaasi ifka adiga iyo muuse bixiba idinku soo saaro si ay ugu cimro qaataan kuwa idinka dambeeya ama wadooyinkiina ku socda adduunyada kolay aakhiro in laydinku cadaabaya qof baa shaki kaga jira shaki kuma jiro aakhiro waa laydinku cadaabaya waayo waxaa layidhi qofkii qof dila ilaahay baa qur-aankiisa wuxuu kuleeyahay de cadaab waaday jahanamo aadaya de ka waran ninka intaasoo qof amarkiisa lagu dilayo oo dadkan masaakiinta oo xitaa waxay u dhimanayaan aanan garanaynin isaga dartiisa loo dilay ma cadaab la-aan buu filanaya marka maya ma filanayo marka muuse iyo maxaan ku rahdaa iyo ninkan kaleba waxaan leeyahay rabbi cadaabka ifka haydinku tuso kolleyba waa laydin cadaabaya ilan shaki kuma jire si ay dadkayagu waalani ugu cimro qaataan rabbi cadaabka ifka haydinku soo saaro bil rabadaan baa lagu jira idinkuna aamintahay dhaha aad baan idin salaamaya dhammaantiin